saddexdii maalin ee la soo dhaafay uu hakad ku jiray isku socodka dhanka ganacsiga suuqa magaalada Gaalkacyo kaasi oo ku xirmay isku hormaad dhexmaray labada dhinac Galmudug iyo Puntland waxaana maanta lagu guuleystay inuu dib u furmo suuqa Gaalkacyo isla markaana si caadi ah ay ku soo noqdaan ganacsiga suuqa maamulada gobolka iyo ka degmada Galmudug iyo Puntland ganacsatada ayaa booqday goobaha ku xirmay colaadda Gaalkacyo waxaana lagu guuleystay in la qaado caratuuri ay dhigeen labada dhinac مسؤولينta labada dhinac Galmudug iyo Puntland ayaa si rasmi ah u sheegay inay kala qaadeen ciidankii haddan uu shaqeynayay suuqa magaalada Gaalkacyo Maxamuud Yaasiin Tumay duqa degmada Gaalkacyo iyo Puntland iyo sidoo kale Xirsi Yuusuf Barre duqa degmada Gaalkacyo ee Galmudug ayaa ugu horeyn sheegay saddex qodob baanu intii hawshan socotay isla garanay waxa la yiraahdo horta geed hoostiis aanu isugu tagnaa la yiraahdo geed hoostiis isugu tagnaa la yiraahdo guriga ka soo baxno waa qodob geed hoostiis la aad inta ka baxnay gurihii shalay in meeshan wanaag ka soo socdo waxaan ku garanay hadalkii markii lagu heshiiyey naacaw galangalaan qaaday ragga qaar waxa dhan shuushkii baa baxay waxa ku xigay roob baa ku xigay dambigii waa dhaqmay aan isu dulqaadno ganacsatadu waxay ahaan jirtay dhibkaan markuu dhaco dadkii lagu soo cararayay dhabarka isu jeedin jireen oo qofna cadowgaas ku difaaci jiray midna cadowgaas ku difaaci jiray hadda iyagii dhibtii soo gaaray waa nasiib darro weeye laakiin fidmadu haddii aadan demin oo ay dhinaca ka socoto ama dhinaca ka socoto adigu aadan demin waa ku soo gaaraysa xaqiiqdii ganacsatadu iyagaa dhaqaalihi haysta dadkan iyagaa isugu dhow waxaa la rabaa fidmada ama magaalada ama geesyada ka socota dadka ugu horreeya wax ka deminaya inay noqoto haddaydan wax ka demin wax ogaataan inay soo gaaraysa maanta idin soo gaartay maantay waxaan u malaynayaa shalay iyo maantay waa kala niyad fiicannahay waxoogaa meeshii aan shalay joognay iyo meeshaan maanta joogno ilaahayna waxaan ka rajaynayaa inaan meel ka sii wanaagsan u sii gudubno waxaan rabaa inaan meeshan ka cadeeyo waxaan halkan u nimid saddex qodob in ciidamada la kala qaado in ciidda la kala guro in ganacsiga dib loo furo saddexdiiba ciidiina waa la kala qaaday ciidamadiina wixii baqarada waardiyooda maana wixii kale waa la qaaday ganacsiguna hadda ka bacdi waa furan yahay nin waliba ha ganacsado waxaan rabnaa inay maskaxdu shaqayso in wixii idin dhex yaalla oona dhex yaalla aanu ku dhammaysano wada hadal hadda ka hor waxa la dhihi jiray maamulada dagaalada wada gudoomiyaalka isku dhaaran jiray madaxweyneyaalka isku bootayn jiray hadda way soo dhamaatay soo maaha hadda meesha dagaal lagama dhamayn karmaya macnaheedu haddii madaxdii iyo maamuladii heshiiyeen marna miyiga dagaalku ka qarxaya marna ganacsadii ah meesha ugu roonayd oo maartay oo la isugu imaan jiray markii carada kale nabad ka dhacdo ba haddana dagaalka ka dhacay qaar ka mid ah ganacsatada magaalada Gaalkacyo Galmudug iyo Puntland ayaa iyaguna soo dhaweeyay in dib loo furo suuqa magaalada Gaalkacyo Bismillahir Rahmaanir Rahiim walaalayaal waan anigu ku hadlahaya afka ganacsatada Galmudug nabadda waa soo dhaweynaynaa waxa dantu ay noogu jirtaa waa nabadda qoraxda waxaan u taaganahay waa nabadda bulshada deegaamada ku nool dhammaantood waxa ay danaynayaan waa nabadda waxay dantooda u soo layaceen oo qof walba uu dantiisa intuu meel ku soo xiro u soo tagay waa nabadda waxaan rabnaa waa soo dhaweynaynaa nabadda ayadan dani noogu jirtaa waxaan ku hadlayaa ganacsatada Puntland magaceeda Allah subhanahu wa ta'ala baa mahad iska leh ma ay ahayn maanta anaga ganacsataa in la isugu kaayo yimaado dadweynuhu labadiina dhanba raali gelin baan ka bixinaynaa maanta inaad anaga isugu kaayo timaadaan aad baan uga xunahay wixii wadanka ka dhici jiray iyadoo aan ahaan jiray dadka xalliyo gacanta ku qabta meel kasto dagaal ka dhacayo haddana maanta in anaga nala ku isugu kaayo yimaado caarun calayna waa wax anaga sharaf darro noo ah Ali Nurayn Goobjoog TV Gaalkacyo